بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم أيها الأحبة المحترمين. ولا ليال سو دواada meel kasto aad joogtaan. bariyahan waxa isoo gaadhayay su'aalo aad u tiro badan. su'aalihii ayaa markaa aan soo koobayay si intii islaba hal mar looga jawaabo biidnillaahi tacaala intii ilaahay inaga garansiiyo. anigu sheekh ma ihi laakiin wixii ilaahay iga fahamsiiyo ayaan jeclahay inaan tala ahaan aan walaalahay oo la wadaago. waxaan isku dayaynaa markaa bal maanta in halkan aynu uga jawaabno laba su'aalood oo ah guurna ma hayo shaqana ma hayo. macnaheedu ay tahay laba caqabadood bay haysta. xaggii guurkana caqabad baa iga haysta, xaggii shaqadana caqabad baa iga haysata. arrimahan runtii waxa sababi kara afar waxyaabood. waxa loo yaqaano il isbiirsatay. isha nabiga calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay alcaynu alxaq. marka alcaynu almutaraakima waxa loo yaqaano isha oo isbiirsata oo lagu ileeyo. waxaana ku ileynaya qofku yacni ku xasdaaya inta badan ama qof aad cajabisay iyo yacni siyaabo badan oo ishu ay ku timaado. marka alcaynu almutaraakima ama mutaraakima oo ah yacni isha isbiirsatay waxay caqabad ku tahay noloshaada dhammaanteed. caqabad ayay ku tahay ishu. waxa kaloo caqabad kugu ah xasadka. haddii dadka ku xasdaya ay badan yihiin caqabad bay iyadana kugu tahay, hore u socon maysid. waxa kaloo caqabad kugu ah dunuubtaada ayaa iyaduna caqabad kugu ah. waxa afraad oo soo raaci karaa waa sixir haddii uu jiro, ama bini aadam caadi ha ku sixiro, ama shaydaan raba inuu ku dego ha kugu sameeyo. waxaana inta badan hadda u badan tahay labadan arrimood oo hore oo ah isha iyo dunuubta, oo xasadku wuxuu soo hoosgeli doonaa uun isha ayuu soo hoosgeli doonaa. marka dhibaatooyinka faraha badan oo haysta walaalaheena hablaha Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin oo guurkiiba uusan u dhamaystirmaynin, laga yaabo markii guurkii ku heshiiyaan qof in ama iyadii ay ka boodo ama isagu ka boodo caqabadaasi ay haysato. laga yaabaa in arrimahaasba aysan isla gaadhin oo foolxumadii qofkaasun loo muujinayo iyo galdaloolooyinkiisa ama iyada galdaloolooyinkeeda u arkaayo. sidoo kalena waxaa badan shaqadii oo rag iyo dumarba laga siman yahay oo haysata. walaalayaal caqabadahaas waa badan yihiin, runtiina waa mushkilado. ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa in uu arrimahaas inaga saaro. sidan oga bixi karnaana waa yaqiin inan allah subxaanahu wa tacaala aynu ku qabno oo aynu allah subxaanahu wa tacaala isku dhiibno una toobad keenno. istiqfaarta markayna la badiyo, weliba istiqfaarta yacni dadku isku wada aqoon ma aha. dad baa carabiga yaqaana, dad baan carabiga aqoonin. astaqfirullahi wa atuubu ilayhi, astaqfirullahi wa atuubu ilayhi, astaqfirullahi wa atuubu ilayhi. qofkii intaa kari kara ha ku celceliyo oo ha badiyo. siiqadan kale ee aan soo wado istiqfaartaana aad bay u fiican tahay. astaqfirullahi alcadiim alladii laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum wa atuubu ilayhi. astaqfirullahi alcadiim alladii laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum wa atuubu ilayhi. saacad, 2 saacadood intii uu karo inuu akhriyo, tira intii uu awoodo inuu akhriyo. inta ugu badan ee aad istiqfaarsan karto inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u istiqfaarsato, soona xaadiriso maskaxdaada, qalbigaaga iyo yacni naftaada aad soo xaadiriso istiqfaarta ood ilaahay subxaanahu wa tacaala dareento oo aad ilaahay u toobad keento. istiqfaar markaad ilaahay u toobad keenaysana yacni waxaad ka xuntahay dembigaagii kaa dhacay, kaad garanaysay, ku aanad garanayn, dembi hore iyo ku cusub intaba. waxaanad is ilaalin gelaysaa inaad dunuubta iska ilaaliso ood ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhowaato. faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursilu الsamaaء calaykum idraara. waa taqaanaan suuratu nuux.
nebiyullaahi nuux calayhi salaam sidii qoomkiisa uu la dardaarmayey. istikfaarta walaalayaal badiya. waxa kale oo dardaaranka ka mid ah arrimahan si looga baxo aad ku gaadhi kartaan arrimihiina qarsada marka ilaahayna idin nimceeyo. haddii ilaahay walaalkayow ama walaashayay qurux jireed iyo qurux nafeed ama dhinacuun ilaahay kugu nimceeyey, quruxdaada ha muujin. wallaahi quruxdaada ha muujin. halis badan waxaad ugu jirtaa ismuujintaadaasi, halis badan ayay keenaysaa. quruxdaadaasi dhibaato badan bay ku horseedaysaa. walaal iska jilbaabo, is astur, si nidaamsan isku astur. allaahuma salli calaa maxamed. waad isqurxinaysaa sax, laakiin quruxda waxaan sheegayaa meelaha loo qurux badan yahay la muujinayo, gaar ahaana xiliyada bandhigyada iyo wixii lamid a, ama aroos ha noqota ama wixii lamid a ha noqotee, aad bay u halis badan tahay. arrimihiina sidoo kale qarsoodi u isticmaala. guurkan inta badan la shaacinayo, haddana muusikada la garaacanayo, durbaanada la tumanayo, aadka u tirada badan runtii qoysaska aafaadka qabsada ayay ka mid tahay. arrimihiina intii aad qarsan kartaan aad aad u qarsataan, ood hoos ugu dhigataan nimcooyinka ilaahay idin siiyey. nebiguna calayhi salaatu wasalaam arrintaas wuu inagula dardaarmay, istaciinuu calaa qadaaya xawaa'ijikum bilkitmaan. oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ina yidhi arrimihiina waxaad u kaashataan qarsoodi. yacni qof kasta oo niyad wanaagsanaa oo dadka jeclaa inuu wax gaadhsiiyo oo hamigiisa soo bandhigayay, oo hamiyadiisii markii arrimahaas ay la kulmeen dhibaatadaas dareemay baa dareemi kara oo fahmi kara. laakiin qof cusub oo dhallinyaro ah aad uma fahmi karo. laakiin dhalinyaro waxaa idiin fiican inaad fahamtaan ood xadiiska qaadataan. ilaahayna ha idinku duwo. sidoo kale walaalayaal waxaa xal ah suuratulbaqara. qofkii akhrin kara maalin walba hal mar dhammayn kara. haddii suuratulbaqara aanad aqoonin, suuratulfalaq, qul acuudu birabbi lfalaq, salaad kasta gadaasheeda ama salaad kasta markaad ka baxda kadib 10 jeer inaad akhrido ama 100 jeer akhrido, gelin hore iyo geli dambe. suuratulfalaq waxaad ka dareemi doontaa faa'iido aad u badan. haddii shaqadu kaa xidhxidhnayd shaqadaa kuu furmi doonta. haddii xasad badan ku haysta wixiibaa kaa yaraan doona. marka waxaa laga yaabaa muddo 21 maalmood haddaad joogtayso inaad isbedel fiican dareento. waxaa kaloo walaalayaal aad badisaan digriga loo yaqaano acuudu bikalimaati illaahi taamata min shari maa khalaq. acuudu bikalimaati illaahi taamata min shari maa khalaq. digrigaas inaad aad iyo aad iyo aad u badisaan, isaguna waxa weeyaan waxyaabaha aan ku talinayno oo ah nasteexada walaalayaal aan rabno inaan halkan aan idinka soo gudbino waqti xaadirkan. ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa dhammaanteenba ha inagu anfaco. waxaan insha allahu ku dadaali doonaa wardiga acuudu bikalimaati illaahi taamatu min shari maa khalaq oo aan si faahfaahsan oga soo hadli doono. walaalaha iga soo dalbaday inaan ka hadlo digriga xasbiya allah wa nicma alwakiil iyo digriga laa xawla walaa quwata ilaa billaah iyo digriyada kale iyadana waan soo wadaa. walaalayaal waxaad ogaataan allah subxaanahu wa tacaalaa inuu ina siiyey diin dhammaystiran, meel kasta oo aynu ka galnana faa'iido leh. haddaan wardiyada qabsanno ilaahay inagu anfacayo, haddaan istikfaar qabsanno allah inagu anfacayo, haddaan aayad qur'aan oo aayadaha ka mida qabsanno ilaahay inagu anfacayo, haddaan suuradaha ku dhigna inagu anfacayo. marka meel walba waxa weeyaan waa wada faa'iido. marka marba in meel xoogga la saaro ayaa muhiim ah. digriyada kale cilmi ahaan iskaga baro, markii aad u baahataad isticmaali, laakiin wardigaagu joogto ha kuu noqdo oo hal wardi oo ka midana inaad ku dheganaato aad bay muhiim u tahay. sida wardiga laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah, iyo qofkii culays dareemayo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxamedan rasuulullah isaguna ku dhega. sida wardiga acuudu bikalimaati illaahi taamatu min shari maa khalaq qofkii ku dhega. sida qofka wardiga ku dhega allahuma salli calaa maxamed istikfaarta qofkii ku dhega. sida saliga nabiga calayhi salatu wasalam qofkii ku dhega. yacni wardiga aad joogtada ka dhiganayso waxaad isaga akhrinaysaa tirada ugu badan. laakiin wardiyada kale yacni wardiga adkaari sabax wa masaa oo kale joogtayso
wardiyada kale intaad ka akhrin karto ka akhriso, laakiin wardiga rugniga kuu ah ee aasaaska kuu ah waxaa lagaa rabaa isaga tirada ugu badan 10,000 12,000 iyo ka badan baynaad gaarsiiso. ilaahayna subxaana watacaala wuxuu kuu furi doonaa mafaatix badan buu ilahay ku siin doonaa oo arrimo badan ayuu kuu furi doonaa biidni illaahi tacaala. laakiin adkaari sabaaxi wa masaa walaalayaal ha hilmaamina, ku dadaala, xooga saara. qof kasta oo ka cabanaya arrimaha guurka inay caqabad ka haysato iyo qof kasta oo ka cabanaya arrimaha xagga shaqada inay caqabad ka haysato, 5 dardaaran ee aan bixinay ha qaato oo hawada fuliyo. waa ay ka mid yahay haddaan ku celiyo istikfaartii, allaahuma salli calaa maxamed, arrimihiisa qofku uu qarsado, suuratulbaqra haddii uu yaqaano oo uu maalintii hal mar dhammeeyo hadduu awoodo, hadduusan awoodin suuratulfalaq, qul acuudu birabbi lfalaq, oo salaad kasta kadib 10 jeer akhriyo, ama gelinka horena uu 100 akhriyo, habeenkiina uu 100 akhriyo. acuudu bikalimaati illaahi taamati min shari maa khalaq, oo sidaasi leeg iyadana uu badiyo inta uu karo biidni illaahi tacaala. walaalayaal waxaan ilaahay subxaana watacaala dhammaanteen inooga baryayaa khayrka inuu ina waafajiyo, culays kasta iyo mushkilad kasta oo ina haysatana inuu inaga kor qaado. inta aynu insha allah kulan kale ku kulmay doono oo dambe waxaan idinkaga tegi doonaa astawdicukum ullah alladii laa tudiicu wadaa'icahu fii amaan illaah. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh. hana hilmaamina walaal saliga nebiga sala allahu calayhi wasalam oo mar walba inoo ah yacni fursad inoo ah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.